عليكم daawadayaal waa Shubaal Media oo halkan ka soo gudbinaya taanka geeriyooday dalka Cumaan haddaba kuma ah Suldaan Qaamos Saciid bin Tamuurkii saddexaad. Suldaan waxa uu ku dhashay isla gudaha dalkaasi Cumaan Salaala gobolka Dhoofa ee Koonfurta. Suldaanku waxa uu waxbarashadiisii hoose dhexe ku qaatay isla gudaha dalkaasi. waxaa aabihii Saciid bin Tamuurkii saddexaad uu u diray dalka Ingiriiska markii uu ahaa 16 jir, isaga oo ku biiray akadeemiyada ciidamada Royal Military ee dalka England 62. Waxa kale oo ku biiray ciidamadii la oran jiray British Army oo uu muddo 1 sano kala soo shaqeeyay dalka Jarmalka. haddaba Suldaan saddexaad waxaa in xukunka kagala wareegay wiilkiisa Suldaan Qaabus 1970. Saciid bin Tamuur waxa uu ku soo laabtay gudaha dalkaasi Cumaan 1966. waxa uu muddo kala shaqeynayay xukunka isaga oo ka hoos shaqeynayay Suldaan Qaamos Saciid bin Tamuur hilka ka hoos shaqeynayay inaanu jeclayn sida uu aabihii u qeynaya ama uu u maamulayo saldanada, isagoo aan ku qanacsanayn amaba aanan la'aanta dalka Cumaan. waxaa kaloo la sheegaa fikirkii ka dambeeyay inuu Suldaan Qaamos Saciid bin xukunka uu ah mid ka soo jeeda dalka. muddadii uu halkaasi waxbarashada u joogay ayaa waxaa la oran karaa waxaa ku soo jeediyay inuu boqortooyada England, iyadoo markii uu 1970 inqilaab ku qabsaday ay ahayd dowladda England mid ka taageertay. dowladda England ama boqortooyada dalkaasi waa mid kaliya ilaa hadda dalka Cumaan dhinac walba taageersan. Suldaan Qaamos Saciid bin Tamuur waxaa la sheegaa in uu ahaa hogaamiyihii ama suldaankii ugu muddada dheeraa ee soo mara dunida Carabta. waxa uu dalkaasi maamulayay sano ah 1970 ilaa uu ka dhinto 10 January 2020. Suldaan Qaamos Saciid bin Tamuur kama aanu tegin waxaan hore. Suldaanka waxaa la sheegaa inuu ahaa mid aad u ka dhigay meel aad u xasiloon una horumarsan kana horeysan argagixisada dunida saameysay. Suldaan Qaamos Saciid bin Tamuur ma aamida wadamada kale ee sida Israa'iil, England ama Mareykan marka ay Carabta isqabtaan wadamada ma aanu muujin isagu marna cadaawad. waxaana la sheegaa in uu ahaa suldaan ay dadkiisu aad u jecel yihiin. duufaantii saameysay dunida Carabta ee ka dhacday wadamada Masar, Yemen ma aanu saameyn dalka Cumaan. waxa uu ka dhigay meel nabdoon, horumarsan, kana ilaaliyay. Suldaanku waxaa la sheegaa inuu u dhintay cudurka kansarka nooca loo yaqaan 2015. waxaa la sheegay suldaanka in mar lagu soo daweeyay dalka Belgium, hase ahaatee 4 sano ugu dambeysay suldaanka waxa uu la daalaa dhacay cudurka kansarka. Suldaan Qaamos Saciid bin Tamuur waxaa la sheegaa muddadii inuu Cumaan aad ku waxbarashada, caafimaadka, kaabayaasha dhaqaalaha, isagoo dalka Cumaan ka dhigay mid ay aad iyo aad ugu horeeya dhinac walba. saldanadana inay soo bilaabatay 1749 waxaana la sheegaa suldaankii ugu horeeyay ee dalkaasi inuu magaciisu ahaa Mahdi Saciid Saciidi. Suldaan bin Tamuur waxa uu ahaa ninka ugu sarreeya ciidamada dalkaasi. Field Marshal ayuu ahaa jagadiisa Royal Army. waxaa kaloo ahaa Admiral Royal Navy Army. waxaa kaloo Royal Air Force. waxaa kaloo ahaa Supreme Power Royal Police. waxa uu ahaa gudaha dalka Cumaan dhinayn iska horimaad lagaga soo horjeedo suldanadiisa amaba lama sheegin marnaba inqilaab ay sameeyeen saldanada gudaheeda isku maanay dayin inay xilka ka qaadaan. haddaba Suldaan Saciid bin Tamuur
oo ahaa aabihii suldaanku kaga qaaday xukunka inqilaab 1970-kii, isagoo aabihii ka dhigay xabsi guri muddada 70-kii 1970 iyo uu ka dhintana waxa uu ahaa hogaamiyaha dalkaasi ama suldaankii dalka. haddaba caruur kamaanu tegin mana aanu dhalin wax caruura. waxaa xukunka dalka la wareegay wiil uu adeer u yahay oo noqonaya suldaanka dalka Cumaan. Cumaan waa meel ugu hodan ah warshadaha, waana meel aad iyo aad u soo saarta. Suldaan Qamus waxaa la oran karaa waxa uu ahaa muddadaas uu xilka hayay mid ay dadkiisu aad u jecel ka hor iman xukunkiisa iyaga oo ku qanacsanaa. suldaanka oo dhashay 18 Noofembar 1900, xirfadiisa ciidannimo waxa uu dheereed oo uu gudaha dalkiisa ku bartay aqoonta dhaqanka iyo taariikhda, oo uu muddadii uu dalka maamulayay isla gudaha dalkiisa uu ku qaatay waxbarashadaas. Suldaan Qaabus Saciid bin waxaa la sheegaa saldanadoodan inay tahay mid asal ahaan dalka Turkiga. haddaba wiilka uu adeerka u yahay Haydam bin Taariq oo noqonaya suldaanka amaba ah suldaanka loo dhaariyay xilka ayaa waxa uu ahaa mid isaguna xukunka kala shaqeynayay adeerkii kuna ag dhowaa amaba la oran waxa uu ahaa dadka aadka ugu dhow. Suldaan Haytham bin Taariq ayuu yahay nin siyaasadiisu ay furfuran yihiin sida adeerkii oo kale. dalka Cumaan ayaa 40 cishaa aas qaran ama baroor diiq caalami loo sameynayo suldaanka geeriyooday Suldaan Qaabus Saciid bin Tamuur. calanka dalka oo ka kooban caddaan, gaduud iyo cagaar isugu jira midabada lehna calaamadda mindida golan astaan u ah waa calanka idiin muuqda ee dalkaasi Cumaan. haddaba Suldaan Qamus waxaanu oran karnaa waxa uu ahaa suldaan xukunkiisu adag yahay, dadkiisana ay aad u raacsan yihiin soo maamulaya dalka. calaamadan aad u jeedaan waa mid oo u gaara suldaan, waana midda taajka boqorka ku sawiran amaba kursiga uu boqorku ku fariisto ku sawiran. haddaba waxaan idiin sheegaynaa in fiidiyooga xiga aanu idinka sheekeyn doono taariikhda suldaanka cusub ee Haytham bin Taariq ee dalka Cumaan, anagoo idiin sheegi doona taariikhda iyo waxbarasho. calanka Cumaan aad u jeedaan waa calanka midabada kala duwan leh ee isugu jira caddaan, gaduud iyo cagaar oo uu leeyahay dalka. waxaa kaloo soo weheliya oo leedahay saldanadu calaamad gaar u ah oo aan ahayn tan calanka oo kale oo ka duwan, oo ku taala taajka boqorka amaba kursiga taajka oo uu ku fariisto boqorka dhabarkeeda dambe. calaamadaas oo ka duwan calanka dalka oo ah mid iyadana ku dhex sawiran oo dusha ay kaga saaran yahay taajkii boqortooyada, waana astaanta ay leedahay saldanada maamula dalkaasi Cumaan. waxaanu idin rajay ka bogan doontaan qaybaheena xiga. waxaa qaybteena xigta idinku soo gudbin doonaa taariikhdan. waanu idin salaameynaa. waa Shubaal Media.